musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan ciro iyo wafdi ballaaran oo xisbiga wadani ka tirsan oo ku sugan dalka Sweden oo ay ka mid yihiin hogaamiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo Marwo Faadimo Siciide iyo kaaliyaha arrimaha warbaahinta ee musharaxa mudane Muniir Axmed Cigaal iyo waliba Aadan Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye Garaada oo ka tirsan hogaanka sare xisbiga wadani ayaa kulal muhiim ah la qaatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden la taliyaha arrimaha dibadda xisbiga Marwo Faadimo Siciide ayaa Home Cable TV uga warantay wixii ay ka wada hadleen wasaaradda arrimaha dibadda. halkan aanu hortaaganahay waxa weyn wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden caasimada Stockholm waxaanu la kulanay tiimkii arrimaha dibadda iyadoo aanu kala hadalnay abaaraha baahsan ee ka dhacday wadankeennii iyo caawimada loo baahan yahay inay gaarsiiyaan iyo koo maanta noo sheegay oo noo cadeeyay inay caawimadii ay ku dhawaaqeen ay bixiyeen oo Somaliland Development Fundkii lagu shubay oo lacagtaas Somaliland ay gaadhay waxaanu kala hadalnay oo kale aqoonsiga Somaliland iyo wada hadaladii Somaliland iyo halka ay maanta ay taagan tahay ay isku taagtay doorashooyinka soo socda ee bisha 11aad caawimadeedii iyo sida international observers ay noogu soo diri lahaayeen kulankan oo si wanaagsan oo aqiibo leh la noogu soo dhaweeyay oo la noo qaabilay waxaan ku kala nimay in annagoo ku heshiinay inay caawimo fara badan oo inta ka badan ay maxay u qaban doonaan Somaliland insha Allah bidmillaahi kariim. wafdiga ayaa sidoo kale kulamo kala duwan la yeeshay hay'adaha dalka Sweden u qaabilsan kaalmooyinka caalamiga ah ee lagu magacaabo sida iyo forum side oo ay ka codsadeen in kaalmo degdeg ah la gaadho dadka abaaraysan ee reer Somaliland. waa kan ambassador Cabdirasaaq Dinaari oo ah ergiga xisbiga wadani u qaabilsan qaaradda Yurub iyo qaramada midoobay oo ka waramaya kulankii hay'adaha ay la yeesheen. runtii waxaan la qaadanay maanta kulan aad u qiimo sareeya hay'adda sida runtii waxaan ka wada hadalnay Somaliland abaaraheeda iyo baahida ka jirta iyo dalkeenii waxay noo sheegeen wixii loogu talagalay Somaliland iyo gurmadkii abaaraha inay sii daayeen una marinayaan dawladda. Barkhad Cabdilaahi Maxamed, Home Cable TV, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden magaalada Stockholm.